waa qaar ka mid ah dhacdooyinka sanadkii tagay ay ka qayb qaadatay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom kuwaas oo lagu garab istaagay dadka Soomaaliyeed kuwada mudan in wax loo qabto deeq lacageed oo gaaraysa $5,000 ayaa la siiyay sanadkii tagay iskuulka ay wax ku bartaan ardayda maqal kala oo ku yaala degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ugu yaraan horta waxaan ka bixin doonaa kirada sanad oo halkan ay degan yihiin iyo qayb kalena waxaan ka caawin doonaa xagga mushaaraadka iyo gaariga shidaalka ilmaha ka soo qaado guryahooda ciidamada naafada qaranka Soomaaliya ayaa sidoo kale ka mid ah dadkii la caawiyay sanadkii 2019 waxayna ka mahadceliyeen deeqda lacageed ee sanad walba ay siiso shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom sanad kasta marka Ramadaan la gaaro waxa noo keenan lacag kaasha oo dollar ah waa uga duceynaa shirkadda waxay haystaan Ilaahay inuu barakeeyo caaday noo tahay sanad walba inay sidaan oo kale loo soo booqdaan lacago kaasha ayaa la siiyay sanadkii tagay caruur gaaraysa 1,000 agoon ah iyadoo midkiiba la siiyay lacag dhan $100 waxayna u mahadceliyeen shirkadda Hormuud Telecom qaas ahaan shirkadda Hormuud Ilaahay idankiis meesha ay ka soo qaadeen wax tiro badan oo ka badan Allah u galiyo way mahadsan tahay boqolkiiba boqol agoomahay quudisaa danyartay quudisaa waxqabadka sanadkii tagay ee shirkadda Hormuud Telecom sidoo kale waxa ka mid ah in deeq waxbarasho lacag la'aan ah la siiyay ilaa iyo 30 arday oo dhameysay dugsiyada sare ee dalka waxaana laga bixin doonaa inta ay dhameynayaan waxbarashadooda mashiinada lagu dhaqo kaliya ayay sidoo kale shirkadda Hormuud Telecom geysay isbitaalka Digfaar si mashiinadaasi ay uga faa'iideystaan dadka danyarta ah ee aan awoodin in qarashka iska bixiyaan haweenka masaakiinta ee haysta caruurta agoonta ayaa sidoo kale ka mid ah dadkii ay gaartay gacanta shirkadda Hormuud Telecom iyagoona u mahadceliyay garab istaag ay u sameysay shirkadda Hormuud ilma joogan wanad iska danyaraanahay oo iska dhibaataysan 4-6 cunug oo awoomana guriga joogan oo ay waayeen iyo anigoo naaf ah waa u duceynaynaa insha Allah ajir Allah ka siiyo sidoo kale shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ayaa 500 oo qoys oo ka barakacay abaaraha ka jiray gobolka Gedo gaarsiisay raashinka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale waliba biyo dhaamin bismillaahirrahmaanirrahiim waana naawiyay abaaraha meesha taalfuul garas waana naawiyay maxad i weynana Hormuud maxada ka hayna alxamdulillah waa ka dheernay barwaaqo la kulunay gurmad muuqda ayay shirkadda Hormuud Telecom ka geysatay fatahaadii ay sameeyeen webiyada Shabeelle iyo Jubba waxayna Hormuud Telecom yaboohday lacag dhan $200,000 Hormuud Foundation Hormuud waxay yabooheen $200,000 aadan ugu mahadcelinayna ganacsatada qaaliga ah inta yaboohday waa loo duceeyay sidoo kale waxqabadkii sanadkii tagay ee shirkadda Hormuud Telecom waxa ka mid ah in ay maalgelin u sameyn doonaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoo fikradooda ganacsi lagu maalgelin doono lacag dhan $5 milyan Mareykanka ah 5 sano ee soo socota si dhalinyaradu ay baartay shaqo u sameeyso iyo dadka aqoonta leh inaan $5 milyan 3 sano soo socota aan diyaar u nahay inaan ku invest gareyno dhalinyarada maaragtay wax baratay